Somali Radio wuxuu idin soo gudbinayaa warar, ciyaaro, barnaamijyo iyo dhacdooyinka Soomaaliya iyo Soomaalida, London, Minneapolis, Stockholm, Dubai, Nairobi. La socod saacad walba Somali Radio. dowladaha Mareykanka iyo Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ay si degdeg ah uga taageeri doonaan soo celinta ammaanka Soomaaliya. safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya dalka Mareykanka Girma Biro oo la hadlayay wakaaladda wararka Itoobiya ee ENA ayaa sheegay in kulamo uu la yeeshay madaxda xukuumadda Mareykanka ay isla meel dhigeen ama ay sheegeen in isla meel dhigi doonaan sidii ay isaga kaashan lahaayeen sugidda ammaanka dalka Soomaaliya. safiirku waxa uu xusay in labada dowladood isla dejiyaan qorshe loogu magac daray OCO oo ujeedkiisu yahay dib u soo celinta nabadda Soomaaliya iyo waxa loogu yeeray ka shaqaynta xasiloonida Geeska Afrika. Mr. Biro oo safiirka u fadhiya Itoobiya dalka Mareykanka waxa uu xusay in qorshahan uu ku jiro sidii loola dagaalami lahaa dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. waxa uu intaasi ku daray in labada dowladood ay isla soo hadal qaadeen intii kulanku uu socday ka bixitaanka ay shabaabku baneeyeen fariisimo ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. sanadii 2006 ay ahayd markii Itoobiya ciidamadeeda ay soo galisay Soomaaliya. xilligaasina waxay taageero siinaysay dowladda uu madaxweynaha ka ahaa Korneel Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Itoobiyana xilligaasi waxa ay sheegtay inay iska ilaalinayso weeraro dhanka Soomaaliya kaga yimaada. Mareykanku waxa uu ka mid yahay dowladaha ugu badan ee taageerada siiya dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ee ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. waxa uu dhaqdhaqaaqa hubeysan ee Al-Shabaab u yaqaana koox argagixiso ah. Grand Royal Hotel Nairobi waa hoteelka ugu casrisan Islii. ku raaxayso Grand Royal Hotel.